cilmi baaris ay sameysay Mareeg Statista ayaa lagu sheegay in xarumaha ka shaqeeya hilibka gasacadaysan ay 2021 sameeyeen lacag dhan 897 bilyan oo dollar ayna higsanayaan sanadda 2027 inuu dakhligooda gaari doono lacag dhan 1 trilyan 354 bilyan oo dollar. si arrinka la yaabka leh ayaa ah in 8 sano ka hor taariikhda kulkeed 2015 ay hay'adda caafimaadka adduunka ku dhawaaqday in hilibka gasacadaysan ee lagu gado suuqyada caalamka laga qaado kansar. waliba waxa ay raacisay noocyada kala duwan ee kansarka oo sababi karo hilibka la warshadeeyay misana la gasacadeeyay, waxaana kamid ah kansarka ku dhaca mindhicirada, kansar caloleedka iyo waliba mid ka waxyeeleeya maskaxda. cudurka kansarka wuxuu sabab u noqdaa sanad waliba dhimashada 10 milyan oo qof, oo waxaaba la yiraahdaa 10kii qof ee dhimata 6 kamid ah waxay u dhimataa cudurka kansarka. haddaba waxaa macquul ah daawada inaad isweydiinayso haddii hilibka warshadaysan laga qaado cudurkan halista badan ee kansarka ah maxay tahay sababta adduunka looga joojin waayay amaba xitaa sidii sigaarkii iyo taabowga digniin loogu qori waayay. si arrinku waxa uu leeyahay weji kale oo qarsoon oo 30 sano ka hor cilmi baaris ay sameysay Dr. Susan oo ahayd aqoon-yahanad Mareykan ah ayaa lagu cadeeyay in hilibka warshadaysan uu carruurta ku sababi karo kansarka ku dhaca maskaxda. si durbadiiba waxaa duulaan ku soo qaaday Dr. Sadan shirkadaha ka ganacsada hilibka iyadoona loogu handaday in la qaarijin doono amaba la sumcad dili doono. waxaana barnaamijkeena maanta ku la fuguri doonaa saaxiibayaal wajiyada qarsoon ay leeyihiin shirkadaha ka ganacsada caafimaad darrada dadka iyo waliba aqoon-yahano la laaluushay si ay cilmi baarisyo been abuur ah u sameeyaan una taageeraan shirkadahaasi. inta aanan gudagelin barnaamijkeena waxaan aad u soo dhaweynayaa saaxiibadeena cusub ee ku soo biiraya channelkeena YouTube-ka iyo waliba page-keena Facebook-ka. waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin inaad share gareysaan channelkeena si ay dhiirigelin inoogu noqoto una soo badino barnaamijyada xiisaha leh. waxaan 1 jeer idin leenahay mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. sidaad ogtihiinba hilibka gasacadaysan waa hilib la geeyay warshad deedna lagu daray cusbo, color, bacteria iyo waliba maadooyin additives ah oo kala duwan sida maadooyinka sodium nitrite iyo waliba potassium nitrite si kor loogu qaado dhadhanka loona kordhiyo jiritaanka hilibka, yacni muddada la cuni karo hilibkaasi. dhibtu waxay ka dhalataa maadada nitrate-ka ee lagu daro hilibka. nitrate ama nitrite waa isku dhisi kiimikaale dabiici ah oo ka kooban oxygen iyo waliba nitrogen, waana maado laga heli karo carrada, biyaha, dhirta iyo waliba hawada. warshadaha ka shaqeeya hilibkana waxay u isticmaalaan maadadani si ay kalar guduudan ugu yeelaan hilibyada kala duwan ee lagu iibiyo suuqyada sida hilibka doofaarka, hilibka lo'da iyo waliba hilibka digaaga. maadada nitrate-ku waa maado asal ahaan sababta kansarka ku dhaca qaybaha kala duwan ee jirka, iyadoona qofka markii uu isticmaalo hilib ay maadadani ku jirto ay la falgalayso amino acid jirkiisa laga helo, waxaana maadadii nitrate-ka ahayd loo bedelayaa maado lagu magacaabo nitrosamine. deedna nitrosaminku waxay ku aruuraysaa mindhicirweynta qofka iyadoona sababta burburinta hidde-sidaha unugyada jirkana ka dhigta kuwo u nugul kansarka. haddaba shirkadaha hilibka waxay u isticmaalaan maadadan inay hilibku u yeesho kalar guduudan iyo udug meel dheer ah, taas oo soo jiidata macaamiisha isticmaasha hilibka warshadaysan. yacni ujeedada ugu weyn ee u isticmaalaan maadadani waa kasbashada macaamiishooda, waliba iyagoo qayb weyn ka qaadanaya dhimashadooda. sidaan horey u soo sheegnana sanad waliba waxaa u dhimata cudurka kansarka 10 milyan oo qof, waana mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad darro ee ugu weyn adduunka. taariikh ahaan waxaa la ogaaday in maadada nitrate ay sababto kansar sanadii 1970kii miilaadiga, oo aqoon-yahan asalkiisa ahaa Irish deedna qaata dhalashada Mareykanka ayaa cilmi baaris ku sameeyay 2000 oo dooli isagoona siiyay biyo lagu qasay maadada sodium nitrite. wuxuuna cadeeyay aqoon-yahankani in kansar laga qaado maadadaasi. waxaa si bareer cad ah ugu hor yimid arrinka maamulaha shirkadda American Meat oo la oran jiray Richard Ling, isagoona la kulma madaxweynaha Mareykanka oo xilligaasi ahaa Ronald Reagan. deedna waxaaba la xiray mowduucaas oo dhan maadaama uu xilligaasi dakhliga ka soo kala Mareykanka shirkadaha ka ganacsada hilibka gasacadaysan uu ahaa 12.5 bilyan oo dollar. cilmi baaristii waqtiga iyo juhdiga lagu bixiyana waxaa lagu tuuray qashin qubka. 15 sano kadib ayaa Dr. Susan Briston cilmi baaris ay sameysay ku sheegtay in hot dogska laga qaado kansar, iyadoona raacisay in carruurtii isbuucii hal mar cunta hot dogska ugu yaraan ay laba jibaar halis ugu jiraan kansarka ku dhaca maskaxda.
cilmi baaristaasi waxay furtay doodo caalamka oo dhan qabsaday dadkiina waxay ka hor yimaadeen shirkadaha ka ganacsaday hilibka gasacadaysan shirkadihiina waxay u caagijugleen una handadeen doktoreesadii iyagoo xitaa isku dayay inay khaarijiyaan ugu dambeynna way ka gaabsatay doktoreesadii sameynta cilmi baariso noocan oo kala ah. From that moment on, for the food industrialists, Susan Preston Martin became public enemy number 1. Basically, we're trying to shoot me down or discredit me. I mean, that's what shoot down means. dhanka kalena maadaama ay shacabkii ku kaceen shirkadii hilibka waxay maalgelisay cilmi baarisyo been abuur ah oo sheegaysa in doktoreesada cilmi baaristeedu ay qaldaneed dadkii lacagta qaatay ee cilmi baarista been abuurka sameeyeen waxaa ka mid ahaa calooshiis u shaqaysta David Cloverfield ahaana madaxa nutrition programka ee Mareykanka kolkii la weydiiyay in lacag laaluush uu qaatana ayuu isku dayay inuu inkiro si ugu dambeyn waa uu qirtay waxa uu yiri they would only fund something that says maxay tahay sababta ay u maalgelinayaan shirkadaha ka ganacsada hilibka qolo ku tilmaamto waxay ka ganacsadaan inuu siyaadinayo kansarka carruurta kaliya shirkadahaasi waxay qarash gareeyaan qoladii tiraahdo cunista hilibka ayaa looga hortagi karaa kansarka ama xiriirka ma dhaxeeyo cunista hilibka warshadaysan iyo waliba kansarka sidoo kale calooshood u shaqaystayaashii qirtay in la laaluushay si ay cilmi baaris been abuur u sameeyaan waxaa ka mid ah Andrew Milkos oo waxa uu yiri wax yar oo magdhawa ayaa la isiiyay si aan u beeniyo cilmi baaristii Dr. Susan labadan calooshood u shaqaystayaal waxay diideen inay sheegaan lacagtii la siiyay cadadeeda waayo waxay ka baqayeen in la ogaado qiimaha damiirkooda sidoo kale ururka midowga Yurub ayaa 1999 ku dhawaaqay inay shirkadaha ka ganacsaday hilibka gasacadaysan ay yareeyaan isticmaalka maadadani si haatan oo laga joogo 24 sano ayaa wali wadamo badan laga isticmaalaa maadada nitrate inkastoo dalka Denmark laga joojiyay isticmaalka maadadani si waxa ka hor yimid arinka shirkadaha ka ganacsaday hilibka gasacadaysan waxaana maxkamadda midowga Yurub la soo taagay wasaaradda caafimaadka ee Denmark si loo weydiiyo sababta ay u mamnuucday si wasaaraddu waxay soo bandhigtay cadeynaya in maadada nitrate ay sababto kansar iyadoona ku guuleysatay doodii oo gabi ahaanba dalka Denmark haatan waa ka mamnuuc in shirkadaha ka ganacsaday hilibka warshadaysan ay ku daraan hilibka maadada sodium nitrate ama potassium nitrate wasiirkii hore ee caafimaadka ee dalka Lithuania ahna haatan mid kamid ah guddiga midowga Yurub ayaa la weydiiyay sababta ay midowga Yurub u mamnuuci waayeen maadadan halista ah si waxa uu ku jawaabay maadadani halis badan ma lahan kolkii la tusay konton cilmi baaris oo wada cadeynaya halista maadadanna ayuu yiri arintani waa dood furan dadkana waan ka wacyi gelinaa kolkii la yiri maxaad qaraar uga qaado weyseen sida Denmark uga qaadatay oo kalena waxa uu ku jawaabay in go'aan la qaato sida uma fududa oo haddii aan ahaa lahaa boqorka midowga Yurub waan jooji lahaa si haatan waxba ma ahi If I will be king of the European Union, but I am not king of European Union. hadalkaana waxaa laga dhadhansan karaa in xitaa guddiga midowga Yurub qaramada midoobe iyo waliba hay'adda caafimaadka adduunka aynan ka hor imaan karin shirkadaha ka ganacsaday hilibka warshadaysan oo ay yihiin shirkadahaasi maafiya isku xiran misana ka ganacsata caafimaad darrada aadanaha daawade haddii aad u baahan tahay xog dheeri oo barnaamijkan la xiriirana waxaan ilihii aan ka soo xiganay idin dhigi doonaa qaybta description-ka haatanna inta aan barnaamijka xiga kaga kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa saaxiibayaal dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim